ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaa noo socda casharadeenii taxanaha ahaa ee aan magacyada ilaahay uga hadlaynay waxaan ka hadli doonaa magaca ilaahay subxaanahu watacaala ee ah almalik oo ah waa allaha boqora ee boqornimada leh ee qofkuu rabo boqor ka dhiga qofkuu rabana boqornimada ka ceshada alla subxaanahu watacaala ayaa ah cidda bixisa boqornimada wa huwa almalik ilaahay subxaanahu watacaala boqornimada isagaa leh isagaana awooda isagaana bixiya waana boqorka xaqa ah ee soo hara ee marka u dambeysa ee adduunyada lasoo laabo ee aakhiro la tago oranaya liman ilmulku lyowm ilaahay subxaanahu watacaala marka boqortooyada tan ugu sarreysuu leeyahay sababtuna waxaa weeye boqorada oo dhan isaga ayaa boqornimada siiya fatacaala allahu almaliku alxaq laa ilaaha ilaa huwa rabu alcarshi alkariim ereyga ama kelmadda malik qur-aanka siyaabo kala duwan bay ugu soo aroortay laakiin ereyga malik qur-aanka waxay ugu jirtaa bay culimmadu yidhaahdeen 5 jeer oo ah huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa almaliku alquduus فتعالى الله الملك الحق مالك يوم الدين قل اللهم مالك الملك waxay kaloo qur-aanka ugu soo aroortay ayadoo ah malik ina almuttaqiina fi jannaatin wanahar fi maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir saa darteed mulkigu ama boqornimada uu ilaahay subxaanahu watacaala bixiyo oo uu qeybiyo waxay awood u siisaa ama boqorku wuxuu awood u leeyahay inuu siduu rabo ugu dhaqmo xukunka uu gacanta ku hayo sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala isagoo boqor ah wuxuu mararka qaar khalqigiisa ka mid ah gaar ahaan bini aadanka waxa uu siiyaa boqortooyadii qeyb ka mid ah laakiin ayadoo naaqis ah waa kan ilaahay qur-aankiisa ku dhahaya alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allahu almulk waa kan ilaahay qur-aankiisa ku dhahaya in allaha qad bacatha lakum taaluuta malika waa tan ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi marka boqortooyada ilaahay subxaana watacaala baa bixiya laakiin wuxuu bixiyaa ayada oo nuqsaan leh oo aan buuxsamin oo waqti ku eg ama muddo ku eg ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyabluwakum fima aataakum ina rabbaka sariicu alciqaabi wa inahu lagafuuru raxiim oo loola jeedo ilaahay subxaana watacaala marka uu dadka abuuray wuxuu u kala qeybiyey dad adeegayaal ah iyo dad loo adeego dad boqorro noqda iyo dad boqorrada u shaqeeya xikmadda uu ka leeyahayna waxaa weeyaan liyabluwakum fiima aataakum in qolo walba waxa uu ilaahay siiyey inuu ku imtixaamo qof baa boqornimada la siiyey boqornimadii waa lagu imtixaamayaa qof baa waxaa la siiyey inuu khaadim u noqdo ama adeego u noqdo boqorka laftigiisa oo nidaamkaas ama dowladdaas uu u shaqeeyo asaga laftigiisa waa ku imtixaaman yahay kan boqorkana waa imtixaaman yahay imtixaankaas marka qofkii ku dhaca waxa uu helaya waxaa waaye sariicu alciqaab wuxuu helayaa ciqaab kusoo degdegta buu helayaa haddii uu laakiin waxaa loo sakhiray ee la siiyey ee asaga dabeecaddiisa u dhowna haddii uu si wanaagsan ugu dhaqmana adduunyada wuxuu ku helayaa dambi dhaaf aakhirana wuxuu ku helayaa naxariis sidaa darteed uunka ilaahay markuu abuuray gaar ahaan bini aadamka qof walba sibuu u sameeyey qof walba sidaas uu u sameeyey bayna noloshiisa iyo dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa maadaama ay u dhowdahay ilaahay deeqdiisana midaasay daba socotaa waa ka ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku dhahayo warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya waraxmatu rabbika khayru mima yajmacuun oo culimmada ay ku fasireen ilaahay subxaana watacaala ummadiisa inuuba isku sakhiray una kala sara mariyey waxyaabaha ilaahay isku sakhiray waxaa ka mid ah qof baa shaqo raadinaya waxaa ilaahay u sakhiraya inuu shaqaysto oo uu shaqo helo qofna ilaahay subxaana watacaala wuxuu u sakhirayaa
qofkaas shaqada ka soo doontay xuquuqdiisii iyo mishaarkiisii iyo dhaqaalihiisii inuu helo. saa darteed ilaahay dadku wuu isku sakhiray. waa meesha laga dhahayo qof ilaahay wuxuu u sakhiray inuu noqdo qof teknokraat ah oo maamulo ah oo shaqaale ah. qofna ilaahay wuxuu u sakhiray inuu noqdo hogaamiye dadka maamula, madax u noqdo leader ama hogaamiye usoo baxay uu noqdo. kulligoodna waxay leeyihiin ay wataan deeqdii ilaahay subxaana wa tacaala, oo qof walba midda u sahlan inuu ummadda ugu adeego baa ilaahay subxaana wa tacaala gelinaya. kii aqoon iyo xirfad ummadda ugu shaqaynaya, aqoontiisa iyo xirfadiisii baa hibo loo siinayaa. kii inuu madax noqdo oo hogaamiye noqdo loo siiyana madaxnimadii baa lagu siinayaa. sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala asagaa dadkan isku sahlay, waxaana keenaya maadaama uu yahay boqorkii boqorada, siday u wada noolaan lahaayeen ilaahay asagaa ratibay oo kala tootoosiyey. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay qul illaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu almulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr inaka calaa kulli shayin qadiir. culammadu waxay yidhaahdeen aayaddan dhowr faa'iida ku jirto oo ay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala marka uu boqornimada bixinayo si sahlan oo fudud oo sababaheedii wadata, oo qofku marka uu gaaraya xataa isagoo sahal ku helay bay gacantiisa u gelaysaa, maadaama ay tahay wax ilaahay uu bixinayo. yacni tu'ti wax uu ilaahay ku siinayo waayo, uu kula maagayo, isagoo kula soo doonanayo. sidaa darteed si sahala oo fudud bay kugu soo gelaysaa markaad boqortooyadu ay kusoo gelayso ama xukunkaba uu kusoo gelayo. waxaa la mida marka aad xukunka ka tegayso ama xukunka lagaa qaadayo ama lagaa ceshanayo, ereygaa rabtid u isticmaal. ilaahay kelmaddu isticmaalay waxaa waaye watanzicu almulka. nascigana waxaa luqadda carabiga la dhahaa wax lagaa siibayo. xaaladii aad ku dhex jirtay baa lagaa bixinaya, waa lagaa siibaya, qof wax laga miirayo camal baa noqonaysaa. sidaa darteed xanuunka xukunka in laga tago ama qofku xukunka uu ka tago ama boqornimada uu ka tago ama waxa uu maamulayo uu ka dhex baxo, tacbiirka qur-aankay ka muuqataa. xanuunkaasna waxay dhaheen qofku wuxuu dareemayaa hadba macaansigii hore ee kursiga uu ku qabay ama xukunka uu ku qabay ama caashiqii kursiga u hayay. labadaas inta ay la egyihiin baa waxay la egyihiin xanuunka aad dareemayso marka aad kursiga ka weynayso oo aad ka baxayso. sidaa darteed waxaa kuu muuqanaysaa qofku marka uu kursiga ka tegayo, haddii uu si wanaagsan oo qurux badan oo fiican oo degan uu ku wareejiyo oo uga tago, waxaa laga dhaxlaa nabad, waxaa laga dhaxlaa barwaaqo, waxaa laga dhaxlaa noloshii oo sii socota. hadduu laakiin isku dhakiyo oo uu ku dhago oo nascigaas uu dadkana ku dhibo, ilaahay markuu xukunkaas ka qaadayana uu dhibaato badan ku geysto, haadaamo iyo khasaarooyin iyo dhibaatooyin iyo rafaad bay ummaddu ka dhaxashaa. sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala xukunka sidaas uu ratibay oo qofna xooga looga siibay oo laga soo miiray, midna si sahla lagu siiyey. xukunka labaadoo ku xiga waxaa waaye ilaahay subxaana wa tacaala inuu asagana bixiyo cizada, sharafta iyo karaamada inuu ilaahay bixiyo. qofku inuu dulli noqdo oo uu jabo oo nafsiyan u jabo oo awood ahaan u jabo oo tabar ahaan u jabana xagga ilaahay bay ayadana ka timaadaa. sidaa darteed waxay culimmadu leeyihiin ilaahay siduu aayadda u kala saaray oo ah xukunkii bixintiisa iyo xukunka siibistiisii qayb bay aayaddu sheegaysaa, qaybta kalena waxay sheegaysaa cizada iyo dulliguba inay iyaduna gaar yihiin. sidaa darteed waxay dad badan aaminsan yihiin haddii xukun lagu siiyey macnaheedu ma aha waa lagu sharfay, haddii xukunkii lagaa qaadayna macnaheedu ma aha waa lagu dulleeyey. mararka qaar xukunka adiga oo fadhiya bay sumcadaadu halaabaysaa, taariikh xun gelaysaa, dhibaato badan geysanaysaa, ummadduna ay ku haraamayaan oo habaar ay kugu sii daynayaan. maalinta xukunka aad ka tagtana habaarkii habaar kasii badan lagugu sii tuurayaa. waxaa laga yaabaa adigoo xukunka ka tegay oo xukunka ka degay si sharaf leh haddaad u dhiibto oo si sharaf leh ummadda inaad ugu dhex noolaato oo ummadda dhexdooda karaamo ku yeelato. sidaa darteed cizada lama socoto xukunka, dulliguna lama socdo inaad xukunka weysay, laakiin waa wax ilaahay gaarkeeda u bixiyo oo adoo xukunka ka tegay buu ilaahay ku sharfi karaa oo karaamo kuu yeeli karaa, ayadoo ay ka imaanayso sidaad u dhaqmaysay markii aad xukunka joogtay. sidaa darteed hogaamiyaha wanaagsan ama qofka og in boqornimadan ilaahay siiyey, ilaahayna ka ceshay, wuxuu ilaashadaa taariikhdiisa inay magac yeelato, marka uu dhintana dadka ay wax fiican ku xasuustaan. waana midda keenaysa qofka bini aadamka ah inuu raadiyo wax alla agtiisa wanaag uu kula hortegi karo, ummadda intuu nool yahayna uu wanaag kula noolaan karo. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu boqortooyada helay oo ilaahay uu mahadnaqayay wuxuu dhahay rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid. waxay yidhaahdeen rabbi qad aataytanii min almulki wuxuu ula jeeday
marka koowaad inuu ilaahay siiyey awood uu naftiisa kaga adkaaday. muxuu awoodiisa naftiisa uga adkaaday? anshaxiisii buu ilaaliyey, sharafkiisii buu ilaaliyey, wuxuu dhowray wax allaale iyo wixii nebinimadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo muru'adiisii wax u dhaawacayay ama dhibaato u geynayay oo dhan buu iska dhowray. saa darteed inta uusan boqor noqonin baa ilaahay wuxuu siiyey awooddii uu naftiisa ku xakameyn lahaa. waxaa kaloo la siiyey awooddii uu ugu sabri lahaa wixii dhibaato kusoo dhacday. xabsi buu u galay, rafaad buu u maray, dhib badan buu soo maray intuusan boqor noqonin. intaas marka waxay u keentay inuu sabray. waxay markii dambena gaarsiisay inuu noqdo boqorkii Masar xilligaas joogay, qofkii ugu dhowaa ee saaxiibka la ahaa, ee hadda haddii magaca hadda jiro xukunka aan ku macnayno la oran karo wuxuu noqday wasiirkii maaliyadda ama wasiirkii hantida, macdanta iyo ummadda waxay leedahay oo dhan qofkii maamulayay buu noqday. wuxuuna ku gaaray inuu ilaahay subxaanahu watacaala dartiis markii hore anshaxiisana u soo hagaajiyey, sabir badanna uu la yimid oo uu sameeyey. markaasa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu mahadnaqayaa inuu leeyahay wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiith. ta'wiil alaxaadiith marka riyada kaliya inuu fasira ma ahana waa cilmiga dhammaan oo ilaahay uu siiyey. wax kastoo cilmi ahaa oo u baahnaa inuu ummadda ugu adeego oo wax ku xukumo baa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey. culumta nebi yuusuf ilaahay siiyey waxaa ka mid ah cilmiga dhaqaalaha oo ummadda dhaqaalaheedii uu ku maamulay. saa darteed hantidii maguurtada ahayd ay ummaddu haysatay, nebi yuusuf calayhi salaam wuxuu haystay qorshihii uu ku maamuli lahaa, fikraddii uu ku maamuli lahaa, maskaxdii uu ku maamuli lahaa. qaala tasracuuna 7 siniina da'ban famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliila mima ta'kuluun. wuxuu kaloo haystay waxa hadda annagu aan dhahno vision ama aragti mustaqbali ah. maadaama uu hogaamiye noqonayo wuxuu haystay fikraddii uu ummadda kusii badbaadin lahaa jiilka hadda jooga iyo jiilka ku xigaba noloshii fiicneed ay kusii noolaan lahaayeen buu kasii fikray. waa kan ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay oo nabi yuusuf uu sheegayo uma ya'tii min bacdi dalika 7 shidaadun ya'kulna maa qadamtum lahunna ilaa qaliilan mima tuxsinuun uma ya'tii min bacdi dalika caamun fiihi yugaathu nnaasu wa fiihi yaxsuluun. marka waxaa la rabaa qofka hogaamiyahana inuu ummadda khidmadeedii iyo adeegeedii uu fikrad fiican kasii haysto. waana midda u timid oo ah wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiith. wuxuu nebi yuusuf ku dhammeeyey waxaan oo wanaaga uu sameeyey, waxaanoo cilmiya uu helay, waxaanoo boqortooyaa uu helay. wuxuu ku soo dhammeeyey inuu yidhaahdo anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin. yacni ereyga ah wa alxiqnii bisaalixiin, dadka wanaagsan ilaahayo haleelsii. saalixiin macnaheedu waxaa waa inaa wanaagsan tahay. wanaaguna muxuu ka bilowdaa inaa sumcadaadu fiican tahay oo dadka markaa dhimata xataa ay sumcad fiican kuu sheegayaan. sidaa darteed markaa hogaamiye noqonaysa waxaa la rabaa inaad ka fakarto alxiqnii bisaalixiin. xukunkan waa ka tegaysaa, ilaahay baanu ku siiyey, muddaana joogaysaa. marka aad ka sii tegayso alxiqnii bisaalixiin waxay ka mid tahay inaa adigu dadka ay ku aqoonsan yihiin wallaahi waagii uu joogay abaartaanan ka baxnay, dhibaatadaanan ka baxnay, waxaanaa noo hagaagay, waxaanaa noo samaysmay. xataa waa tan lagu ducaysto ambiyada ay dhaheen wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin. dadku marka ay magacaaga sheegayaan inay wax wanaagsan kugu sheegaan oo hadal wanaagsan ay kugu sheegaan. sidaa darteed mulkiga ama boqortooyada bini aadanku markay helayaan, qaarna si wanaagsan bay uga shaqeeyaan oo waddo wanaagsan bay ugu shaqeeyaan, wax wanaagsanna way ku qabtaan. waxaa ka mid ah nabiyullaahi Suleymaan oo xukunkii uu hayay iyo nebinimadiiba ilaahay subxaana watacaala isugu daray. waxaa ka mid ah dulqarnayn innaa makannaa lahu fi lardi wa aataynaahu min kulli shayin sababa. waxaa kaloo jira xukunka laftigiisa dad shaydaannimo u isticmaala oo kibir ka qaada oo qooq ka qaada. waxaa ka mid ah fircawn ilaa uu gaaray siduu u qooqayay inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayri. qaarna hantidii bay heleen, markay hantidii heleen bay haddana awood u heleen. waxaa ka mid ah qaaruun oo gaaray markii dambe inuu yidhaahdo inamaa uutiitu calaa cilmin cindii. sidaa darteed xukunka qof mudanna waa helaa oo waddo khayr uga shaqeeya, qof aan mudnaynna waa helaa. waa meesha la raba in la fahmo xukunku ama mulkigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay bixiyo. ilaahay wuxuu siiyaa qofuu jecel yahay, wuxuu kaloo siiyaa qof uusan jeclayn. waxyaabaha adduunyada la bixiyay ka mid tahay. xoolaha si loo baxsho, ilmaha loo bixiyo, caqliga loo bixiyo, waxyaabaha ilaahay adduunyada uu keenay oo la qaybiyay ka mid tahay. saa darteed nebi Suleymaan baa malik noqday oo boqor noqday, fircawn baa boqor noqday. marka haddaad aragto qof xukun helay ama boqornimo helay, ha u malaynin
inuu ilaahay xiriir gaara la leeyahay oo la jecel yahay oo si gaara loo doortay, laanna mulkigan adduunyada yaalo ilaahay agtiisa wax weynba kamaba ahaba, oo wax sida caruurta aad u helayso, dhaqaalaha u helayso, sumcadda u helayso, oo ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa ugu qaybinayo. laakiin qofka waxaa la rabaa damaciisa iyo qiyaasta maskaxdiisa inuusan xuduud u yeelin, oo meel allaaliya meesha uu gaarsiin karo uu gaaro. ilaahayna markuu wax ku siinayo wuxuu wax kugu siinayaa waxa adiga aad malaysanayso oo aad filanayso. haddaad filato inaad shaqaalo noqoto, shaqaalaad ahaanaysaa. haddaad filato inaad meel yar mishaar ka qaadato, mishaar baad qaadanaysaa. wax allaali wixii aad filato unbaad helaysaa. saa darteed nebi Suleymaan waxaa laga baranayaa hal cashir oo nolosha muhiim u ah, oo ah waxaa maskaxdiisa kusoo dhacday isagoo nebi ah inuu ilaahay boqortooyo ugu daro. waxaa kaloo ugu soo dhacday boqortooyadaas in wax walba loo fududeeyo, uu dabeesha adeegsado, wax walba uu adeegsado, cid walba uu amar u dirsado, makhluuqaadka oo dhan uu amar u dirsan karo. wuxuu kaloo kusoo dhacday boqortooyada nooca uu ka gaaray iyo meesha la gaarsiiyey cid asaga ka dambaysa inaan la siinin. intiina ilaahay waa isugu daray. marka ayadda waxaa laga baranayaa adiga mar walba maskaxda qiyaastaada waxa kusoo dhacaya xuduudeeda ha iska xirin. haddii xuduudeeda aa iska xirto, meesha aa ku xirtay bay ku ekaanaysaa. haddaad rabto inaad noqoto qofka adduunka ugu taajirsan, jidkeeda mar, ilaahay subxaana wa tacaala wuu kugu caawinayaa. keliya akhlaaqdaadana hagaaji, ilaahay xiriirka aala leedahana hagaaji. haddaad laakiin xirto tiraahdo aniga ilaahay shaqaalo iigu talagalay, shaqaalahaasunbaad iska ahaanaysaa. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad u diyaargarowdo mulkiga ilaahay ku siinayo, ama haddaad behesho laba shay inaad diyaar u ahaatay. fursaddaa kuu timid sidee u maamulanaysaa oo aad guul ugu bedelanaysaa waa inaad taqaanid. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad taqaano xukunka. mararka qaar waa inaad adiga cidda xukunka haysa aad u sheegi karto waxa aad ku fiican tahay. haddii dadku ku dooranayaan, dadka u sheeg waxaad ku fiican tahay. haddii qof madaxa go-aan gaarayana qofka inta u tagtid waxaa u sharaxdaa waxaa ku fiican tahay. nebi yuusuf markuu u tegey boqorkii haystay Masar wuxuu ku yiri innii xafiidun caliim, anuu nin aaminana waa ahay, nin aqoon lana waa ahay. ayadiina wuu sugay. laakiin hadduusan is sheegi lahayn inuusan aqoonin ama khibrad uusan lahayn, waxaa laga yaabaa inuusan xukun kaa heleen. sidii beerta iyo nolosha iyo jiilashii markaas joogta loo badbaadin lahaa, qorshaheediina wuu soo bandhigay. marka qofka boqorka noqonaya laba shay baa laga rabaa. number 1, cidda uu ka rabo in horta isu soo bandhigo, isu sheego oo yiraahdo waxaanan qaban karaa, waxaana amiinna waa ahay, xaafidna waa ahay, qof wanaagsan oo aqoon laan ahay. 2, waxaa laga rabaa waxaad qabanaysa inaad u sheegto dadka oo tiraahdo sanadaha soo socda waxaasaan qabanaya, sanadaha kusoo xigana waxaasaan qabanaya, waxaasna aad ka dhabayso. waxaa kaloo jirto dhaqan ama anshaxa qofka boqorka waa inuu ka duwanaadaa anshaxa qofka caadiga ah ee iska nool. waa inaad kala duwan tahay. dabeecadaada shakhsiga ah iyo markii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku doorto oo boqor uu kaa dhigo, waa inaad anshax ka duwan aad la imaato. nabiyullaahi Suleymaan markii uu hudhudkii baadi goobayoo raadiyey oo uu yaro daahsaday, wuxuu yidhi la'ucadibannahu cadaaban shadiidan aw la'adbaxannahu aw laya'tiyannii bisultaanin mubiin. culammadu waxay yidhaahdeen la'ucadibannahu cadaaban shadiidan, qaybtaas koowaad waxay muujinaysay nebi Suleymaan oo qof caadiya ah, oo caraysan, oo xanaaqay, oo raba inuu tallaabo ka qaado, oo ah cara shakhsi ah ka matalaysa asaga dareenkiisii ka matalaysa. oo ninkaa wuxuu sameeyey ama hudhud wuxuu sameeyey la'ucadibannahu cadaaban shadiidan. tii keliya kuma joogsanayna wuxuu yidhi aw la'adbaxanna, ama waaba gowracaya isagoo dhanba. kelmaddaana waa kelmad qofkii yaro ka dhaafsiisan oo ka yara weyn. waa boqor carooday. boqorku markuu caroodo meesha ugu dambayso ku geen karo waa inuu ku gowraco ama uu suuda ugu adag ku handado. laakiin waxay dhaheen culammadu markii dambe wuxuu usoo laabtay boqorkii caadilka ahaa ee nebiga ahaa ee waajibka boqornimada ku dhaqmaayay. aw laya'tiyannii bisultaanin mubiin. waxa uu la maqnaa waa inuu ii keenaa wax xujo ah oo aan ku qanci karo. haddii marka xujadaas mar haddii la gaaray, xanaaqiina meesha uu ka baxay qofnimo, xanaaqii boqorna meesha waa ka baxay, waxaa imaatay cadaaladii boqortooyada baa imaatay oo nebinimadii uu nebi Suleymaan lahaa. waana dhaqanka laga rabo qof walba oo hogaamiye ah. marka aad go-aan gaarayso, biniaadan baa tahay wad caroon kartaa, biniaadan baa tahay wad xanaaqi kartaa, biniaadan baa tahay awooddaada isku dayi kartaa inaad isticmaasho. laakiin waa inaadan hal kelma ka tegin oo ah aw laya'tiyannii bisultaanin mubiin. waxaan aan hubsado, waxaan caddaynteedii itusi, waxaan aan iska ogaado. markaas ka bacdi wixii kula quman samee. laakiin waxaa laga yaabaa inaad baqanacdo oo laguu keeno oo warbixin aad u qiimo badan, sidii hudhudkii uba la yimid oo warbixin fiican buu u keenay. waxaa laga yaabaa warbixin fiican in lagu keeno. sidaa darteed boqor markaa tahay waxaa la rabaa kow inaad iska ilaaliso
adiga dadka hortooda wax kugu ceebeynayo ama ha ahaato musuqmaasuq ama ha ahaato qaraabo kiil ama ha ahaato akhlaaq xumo shakhsi ah dadku inay adoo wax xun sameynaya ay ku arkaan. waxaa kaloo la rabaa inaad ilaaliso qawaaniinta la sameeyey ood uga dayato boqorka. ilaahay subxaana wa tacaala isagaa boqora, qawaaniin buu adduunka u sameeyey, sunan kowniya u sameeyey. sunanta kowniga isagaa ilaaliya, mana lagu xadgudbo. ilaahayna subxaana wa tacaala wuu dhowraa oo addoommadiisa inay isdulmiyaan ma ogolo, asaguna ma dulmiyo. isagayna ka bilaabatay yaa cibaadii ina xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. qawaaniintaas marka waxaa la rabaa adiga laftigaaga inay kaa bilaabato oo aadan qofna aadan ku dulminin. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad mar walba iska ilaaliso ashyaada asaasiga ah ee xiriirka la leh dabeecadaada shakhsiga ah oo midii hadda aan kasoo sheekeynay ah, oo ah dareenkaaga, shahwada shakhsiga ah iyo carada. labadaas waxaa la rabaa inaad ka adkaato oo aad meel iska dhigto oo aadan mar walba aadan ku dhaqmin wax allaale iyo wixii muujinaya qofnimadaadii shakhsigayd. waa inay meesha ka baxdaa oo aad u gudubtaa midii boqornimadii iyo dhaqankii boqornimada aad la imaato. ilaahay subxaana wa tacaala kownkan markuu sameeyey qawaaniin uu sameeyey, nidaamyo uu dhisay. nidaamyada uu dhisayna dadkiisana waa inay ilaaliyaan buu ku amray, asaguna wuu u kala ilaaliyaa. saa darteed ilaahay subxaana wa tacaala boqortooyadan uu haysto cidna kama nuqsaamin karto, cidna kulama xisaabtami karto. laa yus'alu camaa yafcal. ilaahay subxaana wa tacaala asagaa boqortooyada xaqu leh, midda ugu sarreysana asagaa leh, wuxuu rabuuna ka bixin karaa. sidaa darteed qofka waxaa la rabaa boqorka dunida ka noqday inuu mar walba xusuusto kelmadii haaruun arashiid markuu dhimanayay uu yidhi yaa man laa yazuulu mulkuhu irxam man qad zaala mulku. adiga boqortooyadaada way dhammaan doontaa, laakiin waa inaad mar walba ilaahay weydiisataa u dhahda ilaahay adaan boqortooyadaadu dhammaanine midkan miskiinka ah oo hadda nafta ka baxayso boqortooyadiisa dhammaatay ilaaha uu naxariiso. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا عيسو ووارثان دمانا